waxaan rabaa si kooban in ujeedada shirkan uu leeyahay aan idin taabto kulanka wada tashiga Boosaaso Puntland sida la socotaan in la qabto doorasho sanadka 2016 iyadoo laga guurayo nidaamkii ku salaysnaa nidaam beeleedka ahaa oo loo yaqaanay 4.5 loona guurayo nidaam dimuqraadi ah oo hal cod hal qof ah waxay ku caddahay si kuna qeexan tahay dastuurka federaalka Soomaaliyeed ee ku meel gaarka ah sida la socotaan haddaba muddada 4 sano ahayd oo uu dastuurku siiyay dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay ku egtahay bishii August sida la socotaan 2016 iyadoo la eegayo xaaladda hadda ka taagan Soomaaliya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo daneeyayaal ka tirsan beesha caalamka waxay garwaaqsadeen isla markaasna go'aansadeen sida soo socota amurahan soo socday go'aansadeen bishii July 28kii 2015 dawladda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay si wada jira ugu dhawaaqeen in doorasho hal qof hal cod ee wadanka ka dhici karta 2016 aysan suuragal ahayn isla maalinka waxa la yiri ilka abeeso hoos ka xiriirsanay waxa ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in aysan sidaas oo kale suuragal ahayn hal qof hal cod inay dhacdo 2016 iyo inaan la kordhin karin muddada haddii ibnankada leeyahay hadda jirta ee dawladda in loo kordhin karin federaalka maalinkii ku xigay oo ahaa 29kii July iyo 30kii July korontada federaal laga ahaado 2015 waxaa la qabtay shirweyne la yiraahdo madasha wada tashiga qaranka oo lagu qabtay Muqdisho waxaa ka soo baxay go'aano ay ka mid yihiin shirkan maanta halkan aynu ku hayno in lagu qabto gobolada sidatan waa ka bedelnaa waxay ahayd in lagu qabto 150 Garowe 150 meesha la yiraahdo Cadaado 150 haddii ibnankada leeyahay Baydhabo 150 Kismaayo ay musharaynaya iyo dhowr 150 oo xamar Muqdisho lagu qabanayo September bisha la yiraahdo 19keedii 3 maalmood shir ka socday 19kii ilaa 22kii 2015kii waxaa la qabtay shirweyne madasha wada tashiga qaranka la yiraahdo waxaa ka soo baxay shirkan aynu hadda fadhino in lagu qabto magaalada Boosaaso oo kale iyo shirar kale waxa kale waxay u igmadeen madasha wada tashigu guddi hawleed la yiraahdo oo task force la yiraahdo sida la socotaanba wasiirru ka kooban yahay iyo xildhibaano iyo oo baarlamaanka iyo dawlad goboleedyada ah inaga waxa weeyaan waxa ku jira wasiirka sportska iyo dhalinyarada iyo wasiirka deegaanka baa ku jira Puntland waxaa kaloo jira guddi kale oo isagana guddiga farsamada la yiraahdo technical support team baa la yiraahdaa guddigaasi wuxuu kaabayaa guddi hawleedka task force la yiraahdo task force kuna waxa ujeedada wuxuu dhan la soo geenayaa nuxurka madasha wada tashiga qaran kuwaas oo ka kooban 7 qof ama waxa la yiraahdaa G7 waxay ka kooban yihiin madaxweynaha Soomaaliya prime ministerka haddii ibnankada leeyahay ra'iisul baarlamaanka Soomaaliya iyo 4 madaxweyne ee dawlad goboleedyada ama dawladaha Puntland ay ka mid tahay
oo ay ka mid tahay Jubbaland oo ay ka mid tahay ISWA mid la yiraahdo oo South West ama koonfur galbeed iyo galmudug afartaas madaxweyne ayaa iyaguna waxa weeyaan ka mid waxa la yiraahdaa G7 qoladaas marka shirkeenan waxa la leeyahay waxaynu ku go'aansano waxay geynayaan in madasha wada tashiga tashiguna waxay ku gaarayaan go'aan ku salaysan is-afgarad consensus ma aha nin qof madaxweyne kara ma jiro qof kasta waa in fikradaas waa in la isku wada raaco haddii kale vote ma aha sida tan loo badan yahay ma aha consensus baa la yiraahdaa iyo negotiation saas uu ku salaysnaanayaa shirku waxaan rabaa inaan xoogaa idin taabto marka shirkan maanta wuxuu kala doorashana ma aha waxaan ka shaqeynaynaa afar hab oo doorasho oo lagu soo go'aamiyay madasha wada tashiga oo rag waraa oo aqoon-yahano ay soo jeediyeen waxaa ka mid ergo doorasho oo ka kooban dalka oo dhan ergadaas doorasho waxa la yiraahdaa waxa la sameeyaa ergo doorasho electoral college oo ka kooban dalka oo dhan si ay u doortaan 275 xildhibaan nidaamka caynkana wuxuu keenayaa in la helo axzaab siyaasadeed oo heer qaran sida uu u sameynayo waa si aan sahlanayn marka nidaamkaas wuxuu ka kooban yahay afarta hab oo la rabo in la kala doorto inagu talooyin baynu soo jeedinaynaa mid walba waxa uu ku habboon yahay oo faa'iidadiisa iyo faa'iido darradiisa kadibna raw data iyadoo oo information ama waa ceerin baa waxa la geenayaa dad khubara ay helayaan oo technical support teamka iyo ay ka mid yihiin task force-ka nimanka la yiraahdo oo hawleedka iyaga marka waxay u geenayaan cilmi report oo kala madasha wada tashiga midda labaad waxa weeyaan ergo doorasho oo heer dawlad goboleed waxa weeyaan dawlad goboleed kasta oo xubin ka dawladda federaalka ha ahaadeen kuwa hadda jira ama kuwa samaysmi doona waxaa ka mid Jowhar iyo Hiiraan oo la rabo in la isku daro waxay samayn doonaan iyaguna ergo doorasho qolo walba samaysanaysaa waxaa lagu soo gudbinayaa madaxweynaha marka dalka ka jira isaga u soo gudbinaya dawladda federaalka laakiin sal waxa u tan 4.5 ergo doorasho oo heer degma ba iyaduna jirta degmo waliba oo ka mid degmooyinkii 92 degmo oo jiray sanadkii 1991 lama rabo kuwii ka horeeyay ka dambeeyay waxa weeyaan 92 degmo oo jiray sanadkii 1991 ayaa samaysanaya ergo doorasho oo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka u matalaya degmadooda tusaale ahaan degmo waliba waxay dooranaysaa 3 xildhibaan taasoo wadarta xildhibaanada baarlamaanku ay noqonayso 276 halka ay ka ahayd 275 xisaabtii marka la isku dardaro mid baa ku zaa'id noqotay oo la iska aqbali karo midda ugu dambaysa waxa weeyaan tii aynu naqinay oo meeshii la rabay in laga guuro ay ahayd ergo doorasho oo beel ku salaysan waxaa la sameynayaa ergo doorasho oo beel ku salaysan tani waxay la mid tahay sidii wax lagu soo xulay sanadkii 2012 oo 135 oday dhaqameed ay soo xuleen xildhibaanada laakiin waxa la yiri enhanced legitimacy waxa la yiraahdo xalaaleynta la kordhiyay meeshii hal oday ka soo xuli jiray intaas la badinayaa 10 oday oo kala lagu darayaa markaas waxa la kordhinayaa xalaalnimadii ama legitimacy sharciyadii si loo kordhiyo oo dad badan ay uga qayb galaan laakiin waa iyadii oo aan car isku rogin afartaas weeye waxaan rabaa inaan idin sheego oo kaliya shirkan wuxuu ku saabsan yahay marka madaxdu ay inoo furto oo hawsha tan ay dhamaato waxaan isku haraynaa 10 ama 100 qof
waxaan u soo jeedinaynaa qaabka waxaan u dhacayaan kadibna waa isqaybinaynaa 4 qaybood baan isu qaybinaynaa maanta oo dhan ilaa iyo berri halkaan aan ku wada shaqaynaynaa kadibna waxa weeyaan wixii natiijo oo ka soo baxa waxaan u gudbinaynaa task force-kii joogay Garowe task force-kaas qaadaya waxay iyaguna u gudbinayaan madasha qaran inta weeye wassalaamu calaykum